السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الميل كستو أشوكتان كسو دواد ومركلة ياسمي ياسين هدي هاد هورين ولا جوكتين لايك تاني إلا وهني سيدد بدن أيوه فايديستان هدان وحسب تاني سبسكرايب كن وعاوي سي أي مرول بإدين سو قارن مقالة أن سو قد بينو دادكون أيوه فايديستان إن بدن maanta waxaynu halkan ka bilaabeynaa barnaamijka loo yaqaano gargaarka degdega ah. waa barnaamij u baahan dhammaan qof kasta inuu maaragtay uu xog ka hayo ama uu wax un ka yaqaano haba yaraatee. dadka badanaa waxay dhahaan barnaamijkan bahda xirfadlayaasha caafimaadka ama dadka dhanka caafimaadka ku shuqul leh baa barnaamijkan uu khuseeyaa, laakiin qof walba uu u baahan yahay inuu barnaamijkan uu wax un ka fahmo, sababtoo ah waa waxyaabo nolol maalmeedkaaga kugu dhici kara adoo isbitaal ka fog, adoo meel safar ku jira, adoo meel miyi ah jooga. marka wax un waa inaad fikrad ka haysataa si guud iyo si gaarba. waxyaabo waxa weeye qaarkoodna qofka haddii aanan si degdeg looga falcelin uu qofku naftiisa halis ku galin karo, marka sidaa darteed baa waxa loogu magacaabay gargaarka degdega ah. waxaa jirta intaan aynu bilaabin barnaamijkan gargaarka degdega ah wuxuu noqon doonaa barnaamij qaybo kala duwan leh. qayb walbana waxay lahaan doontaa macluumaad aada u xiiso badan oo markaasi aan rajeynayo inaad ka faa'iidi doontid. qaybta maanta waxaa ugu talagalay kaliya hordhac oo ah inaan waxyaabo badan isla fahno. qofka waa muhiim inuu maaragtay wax un fikrad ka haysto, uusan dhihin cilmigaas dadkaas baa loo daayay. wax kasta waa baran kartaa, wax kastana waxaa muhiim in maadaama caafimaadku uu yahay wax la xiriira ka warqabka jirka biniaadanka, aad adigana ka warqabtid markaasi goormaad xanuun isku tilmaami kartaa, goormaad caafimaad qabtaa, goormaad xanuunsantahay, waa inaad ka warqabi kartaa ugu yaraan. haddaba dadka dhigta ama bahda caafimaadka ama dadkan ardayda caafimaadka barta, xirfadlayaasha caafimaadka, dhakhaatiirta iyo qof walba culumta caafimaadka la xiriirana iyaguna waa inay si khaasa u bartaanba oo ay uga warqabaan. haddaba waxaa jira qodobo yaryar oo aan jeclaa in hordhac ka dhigo oo aan idinku baraarujiyo. qodobkooda waxa weeye horta markasta caafimaad baan sheegnaa. caafimaad muxuu yahay? marka caafimaadka haddii la qeexo, caafimaadka wuxuu noqon karaa waa xaalad dhammaystiran xagga maskaxda, muuqaalka, nashaadka wanaagsan. ma ahan inuu cudur maaragta maqan yahay oo kaliya. yacni qeexitaankan waa qeexitaan ay qeexday hay'adda caafimaadka adduunka loo yaqaan WHO. yacni waxay ku qeexeen xaaladda caafimaad. maxaa loo yaqaana caafimaad? waxaa loo yaqaana qofku markuu uu ka dhammaystiran yahay xagga maskaxda, oo maskaxiyan uu caafimaad qabo, uu yahay qof miyir qabo oo wacyigiisa soo jeedo, muuqaal ahaana uusan ahayn qof dhaawacan ama qof waxa weeye wax dhaawac ku yaalo markaas muuqaalkiisa uusan u ekeen qof xanuunsan, nashaadkiisa iyo firfircoonidiisuna aysan ahayn u ekeen qof xanuunsan. sababtoo qof markuu xanuunsan yahay waa qof aan nashaad lahayn, sariirta saaran, waxba qabsan karin. marka saas bay ku qeexeen in uu qofku maaragtay ama xaaladda caafimaadku ay maaragtay qeexitaankeedu sidaas ay noqonayso. ujeedooyinka haddaba loo baranayo koorskan ama barnaamijkan gargaarka caafimaadka ah ee qof kasta u baranayo waxaa kamid ah ama dhakhtar ahaw ama qof caadi ahaw ama bulshada dhexdeeda qof walba nooc raba ha ahaado. qof walba muhiim bay u tahay inuu ogaado ujeedooyinka loo baranayo gargaarka degdega ah. waxaa kamid ah ka warqabidda xaaladaha caafimaad ee jirkaaga, ka fogaanshaha waxyaabaha keeni kara cudurada iyo wixii lamid ah, ka warqabka baahida ay bulshada u qabto xagga caafimaadka. hadda kahor baa waxaa jirtay gabar uur lahayd oo iyadoo wadada marasta ay fool qabatay, kadib qof kale oo wadada maraya baa jiray oo isla markaasi first aid ama gargaarka degdega ah soo bartay, isla markiiba gabadhii uu badbaadiyey. marka waa xaalad markaasi ay maaragtay xataa waxaa dhici karta inta taksiga la raadinayo oo kale inay hooyadii ay isgoosato kale, oo markaasi hooyadii ama ilmihii maaragtay meeshaasi ay maaragtay dhibaato weyn soo gaadho ama hooyadii ay dhiig baxdo. marka qofkii markaasi gargaarka degdega soo barto oo kale markaasi wuxuu buu fahmi karaa qofkaasi uu ku badbaadiyo xaaladiisa ilaa inta laga gaarsiinayo isbitaalka. shuruudaha uu adeegsanayo qofka baranaya ama qofka gargaarka degdega marka uu ku samafalayo ama uu sameynayo waa in aadan ku gorgortamin qofka dhaawaca dushiisa. masalan gargaarka degdega soo baratay adoo meel iska maraya waxaa lagu yeeray ama
aad aragtay qof xaalad degdega ku sugan, kadib waa inaadan dhihin intaasaan ku qaadanayaa, waa ii sheeg maxaa la isiinayaa oo kale. qofkan hadaa badbaadiyo oo kale waa inaadan qofkii aadan ku dushiisa aadan ku gorgortamin. midda labaad waa in aadan ka ashashin bukaanka. dadku isku mid maahan runtii. dadka qaar waxaa jira dhiiga keliya aday arkaan ka wiswisaya ama ka labalaboonaya oo kale. qofka waa in aadan ka xishoonin bukaanka, rag iyo dumar cidaa tahay waa in aadan ka xishoonin qofka markaasi aad u fulinaysid barnaamijkan ama aad ku samafaleysid. waa in aadan noqonin qof yacni maaragtay war badan oo hadhow markaa qofka caawisid, masalan hadaad gabar aheed oo kale oo nin caawisid oo caawinaadiisun ay case aheyd, caawinaad xasaasiya, aadan dhihin nin saa iyo saa, qofkii aadan privacygiisa oo kale ama aadan ku sheekeyn. sidoo kale hadaa gabar tahayna yacni labada jinsiba waa in markaad sameynaysid samafalkan caafimaadka ay dar ilaahay ka tahay oo aad maaragtay waxa weeye si asluubaysan aad u caawisaa dadka iyo ehelkaaga iyo qof walbo markaas aad aragto inuu xaalad caafimaad ku sugan yahay, isbitaalna uusan u dhaweyn. waa in aadan ku dhaqmin fal xaasidnimo ah oo kale, qofkii aadan si xaasidnimo aadan uga faa'iideysan markaasi xaaladaas timaaday degdeg ah ee ku sugan yahay. caafimaadka gargaarka degdega ah ee caafimaadka waa qayb soo gelaya samafalayaasha caafimaadka ama daryeelada caafimaadka. haddaba waxaa ka mamnuuca qofka markuu ku dhex jiro waqtigan uu qofka u gargaarayo waa in uusan eex iyo qabyaaleysi midna uusan maaragtay dhankooda uusan xaggooda xigsan. midda labaad rabna in isla fahno waxaa kamid ah qodobkan la yiraahdo horta cudur maxaa weeye. mar walba cudur unbaa sheegnaa. cudur maxaa lagu qeexaa? cudur goormaa dhihi karnaa qofkaasi cudur buu qabaa, ama micnaha cudur muxuu yahay si guud hadaa eegno. cudurku waa xaalad kasta oo aan caadi ahayn, yacni qofkii wuxuu dareemayaa xaalad aan tii hore uu ku jira aan ahayn, kaasoo sababi kara dhibaatooyin mid guud iyo mid gaarba ahaaneed, kuna dhaca qaab dhismeedka jirka, maskaxda biniaadanka iyo weliba jirka iyo weliba nashaadkiisa maalinlaha ah. haddaba gargaarka degdega ah waa caawinaad ama kaalmo kumeel gaar ah oo la siinayo qofka dhibaataysan ama shil ku dhacay ka hor inta aan la geyn goobaha caafimaadka. ujeedooyinka gargaarka degdega ah si loo badbaadiyo naf biniaadan alle wax badbaadiye, in la ilaaliyo in uu ka daro dhaawaca ama dhaawaciisa uu sii xumaado, in jeermis dibadda kasoo galo hadii sidii looga ilaalin lahaa oo kale. qofka markuu dhaawacmo oo jirkiisa meel kamid ay jeexmato waa u fududahay inuu jirkiisa jeermis kasoo galo. in lagu dadaalo sidii dhaqsiyo ugu bogsoon lahaa dhaawacaasi oo markaasi lagula cararo isbitaalka u dhow iyo meesha u dhow, intaba xarumaha caafimaadka u dhow. sharciyada gargaarka degdega ah waxaa kamid ah gargaaruhu inuu diyaar u yahay in maaragtay la tababaro kadibna uu isticmaalo xirfadiisa tababarka. yacni qofka markuu hore inuu gargaarka degdega barto, inuu marka hore gargaarkii degdegaha uu maaragtay soo bartaa oo weliba tababar la siiyaa. barasho kaliya maaha, waa in tababar si practical ah loo tababaraa, kadibna xirfadaasi uu ku maaragtay howlgala ama ku samafal ugu sameeya dadka. si degan u fiiri xaaladaha maaragtay markaasi u baahan in si degdega maaragtay waxa weeye maaragtay loogu samafalo oo ha ku degdegin, maskax adeegso. mid saddexaad, haddii aad la kulanto shil, dooro 2 qof si ay kaaga joojiyaan dadka buuqsan. yacni masalan kale shil baa dhacay, qof baa wuxuu baahan gargaar degdeg oo kale ama dhiig bax sameynaya, dadka way argagaxayaan. marka inaad doorataa 2 qof oo dadka buuqooda iyo si dad waxaa jira iyagoo si kasta cilmigii u leh ama aqoontii leh, haddana markay arkaan buuqa iyo xaalad kacsan ay kalsoonida ka dhumayso oo warwarka badan uu qaadayo. marka 2 qof baa dooranaysaa oo kale si dadka buuqsan maaragtay meesha ku buuqsan oo kale ay kaaga kala yareeyaan. haddii shil baawur ay tahay oo kale 2 qof baa dooranaysaa si ay kaaga joojiyaan baawurta kale iyo dadka kale wadada maraya iyo oo aad xooga u heshid, nafis u heshid. mid afraad, waxqabad degdeg ah ayaa lagaga baahan yahay. waa inaad isla markiiba ficil degdeg ah sameysaa. qof baa dhiig baxaya, qof baa gubtay, qof baa biyo maaragtay harqiyeen, wax kastaa dhici kara. marka waa inaa waxyaabahaas oo dhan aad ku baraarugsan tahay. haddaba waxyaabaha dadka lagu gargaaro maxaa kamid ah? waxaa jira waxyaabo maalin kasta dhaca oo nolol maalmeed ka dhaca oo u baahan xaalado degdeg ah. waxaa kamid oo kale dhaawaca. qofka markuu dhaawacmo meeshuu raba ha ka dhaawacmo, siduu raba ha u dhaawacmo, qaabkuu rabo dhaawacaasi ahaada, ama gaari shil ha galo, ama waxa kusoo dhacaan, ama guri ha kusoo dumo, ama wax kale fuusta ha kusoo dhacdo, ama derbi ama bir ha ku dhacdo. waa inuu qofkaasi dhaawac baa soo gaarin, dhaawacaasi waa in lagu gargaaraa.
intaan isbitaalka la geyn ka hor waa inaad gargaar usii sameysaa. waan ogaan doonaa qaabka qofka dhaawaca loogu gargaaro. sidoo kale dhiigbaxa, qof baa dhiig baxay, sababtay rabto dhiigbaxaas ha noqoto waa inaad garan kartaa qofkan dhiig baxaya, inaad dhiigbixi joojin karta ilaa inta isbitaalka laga gaarsiinayo. sidoo kale qodobka saddexaad waa fracture ama jabniin, qof baa jabay, waa inaad qofkii jabniinka jabay waa inaad gargaar degdeg u sameysaa ilaa inta isbitaalka laga gaarsiinayo. sidoo kale argagaxa ama waxa loo yaqaano shooga waa xaalad iyadan u baahan gargaar degdeg, waa inaad isla markiiba aad sameysaa maaragta isha waxqabad degdeg ah ilaa intii aad ka gaarsiinaysa isbitaalada waaweyn ama xarumaha caafimaadka ee kugu dhow. gubashada oo kale, qofka markuu gubto oo maaragtay biyo ku gubto ama dab ku gubto ama wax ku gubto, saliid ku gubto, gaas ku gubto, waa inaad u sameyn kartaa waxqabad degdega si looga hortago maaragtay inuu qofkaasi waxyeelo noloshiisa gaarsiiyo ama uu xaalad khatar galo ilaa inta laga gaarsiinayo xarunta caafimaad ee markaas u dhow. sidoo kale waxaa kamid qaniinyada oo kale, qofka markii la qaniino oo kale noocay rabta ha ahaato ama qof ha ku qaniino ama bahal ha ku qaniino, sidoo kale iyadana waa qayb kamid gargaarka degdega. poison oo kale, qofka markuu sumoobo oo qofkii wax suna cabo ama wax suna oo maaragtay meel sun lagu buufiyay uu ku dhex jiro oo kale. asphyxia iyadana kale, qofka markuu ceejismo oo kale oo wax ku ceejismo. dhammaan waa waxyaabo maaragtay common ah ama waxyaabo caan ah oo maalin walba nolol maalmeedkaaga agagaarkaada aad markasta maqashid markastana dhaca. waan waxyaabo ugu caansan ee gargaarka degdega ah maaragta ii sheeg waxa way dadka loogu sameeyo. haddaba qaybtii koowaad ee hordhaxa ahayd intaas baa maanta kusoo koobaya. waan filaya inaa wax badan aad ka faa'iideen. haddii wax su-aala aad qabtaan qaybta hoose ay igu reebi kartaan. insha allah waa inoo qaybta xigta oo aan uga hadli doono qayb walba iyo maaragta faahfaahinteeda. tusaale ahaan oo kale dhaawaca sidee qofka loogu gargaara oo gargaar degdeg ah loogu sameeyaa. intaas baan kusoo gabagabeynaya maanta qaybtii koowaad ee barnaamijka gargaarka degdega ah ama first aidka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.